bilowga wadada isku xirta Godaale iyo Laascaanood ayaa ku bilaawantay si iskaa wax u qabsa si nafti hurnimo ah oo aan loo kala harin odayaal ganacsato dhalinyaro haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa guntiga u xidhay ballaarinta iyo dayactirka wadada gasha Godaale oo ku dhawaad 30 sano ah dhibaato ka jirtay aqoon-yahano deegaanka wax u bartay ayaa ku hoolan hagaajinta dhirir iyo balac wadada kaliya ee gasha deegaanka Godaale oo muddooyinkan dambe deris la noqotay shilalka gaadiidka oo u burburka wadadaasi bulshada Godaale ayaa ku nool dhul buuraley ah oo u dhaxeeya maamulada Puntland iyo Somaliland waxaa jira ballanqaadyo kala duwan oo qayb ka ah dayactirka wadada kaas oo ay wadaan ururka maxalliga ah ee Testo oo inta u badan deegaanadaasi wax ka qabta dadka ku dhaqan deegaanka oo iyaguna guntiga u xidhay iyo qurba joogta deegaanka ka soo jeedayaasha deegaankaasi oo iyagu wadada markaasi dhisayay kula howlana hawsha ayaa iyagu ka codsaday dowladda federaalka ku-meelgaarka Soomaaliya iyo maamulada Puntland iyo Somaliland iyo bulshada Soomaaliyeedba inay qayb ka qaataan dhisida deegaankan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودنا وحل الأول عليه وحسوحنا إلا عرقابه إلا حمر إلا بوصاصه إلا رقيس قبر بيته أي سوحنا سيدا ركستان ودنا ربك أي فدادية ويحماطي ساكا أيام سؤال بين أنا وبدن أنت صبابورة أنت صديقنا أو شغينا إسكا وحقبصو سياستين وأربعها النهاي إن الكعاوية لبدا أوركا بسم الله الرحمن الرحيم نسينا وبيو الشيخ وقصو هضلي meeshan waa wadada la yaqaan ee isku xidha Garowe iyo Godaalo iyo ilaa iyo Laascaanood waa wada xundura wadadaas in badan baan u caawinay caalamkan meel walba la hadlinay Puntland waa la hadalay Somaliland waa la hadalay Federal waa la hadalay wali waxba kama hayno wadankuna waa wado meel aan wada lahayn meedan laga qaato ganacsiga laga shaqeysto wadadaas anagu waxaan kaga shaqeynaa iska wax u qabso horena waa uga shaqeyn jirnay markii horena gacan baa lagu sameeyay haddana waa ku wadnaa inta awoodayada ah hadda saaka la galay ilaa iyo haddana waa habeenimana waa lagu jiraa waana lagu sii jiri doonaa inta awoodayadana waa shaqeynaa waxa hadda aanu keenay waa sibid iyo niis iyo haddii la kuuran yahay biyo iyo qalabka lagu shaqeyn jiray waxa soo dhamaan keenay waxa magaalada iyo waxaan ka ururinay ummadda deegaanka wayna ku mahadsan yihiin waana fi sabiilillah waxa loola baxay ajar iyo xasanaad loola baxay waxaan caalamka u sheegaynaa meelan wada lahayn meel magaalo ma noqoto magaalada wadada in badan baan u cabananay wixii awood ama qurba joog ha noqoto ama hay'ad ha noqoto in wadooyinka waxa weeye waa wada wuxuu waxa weeye fi sabiilillah baan inta ka shaqeynaya ay ka shaqeynaya maamulada hareeraha naga xiga iyo dadka islaamka oo dibadda jiraba waxaanu ka rajaynaynaa inay wax ku darsadaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sida odayaashu sheegeen ay ka soo hadleen odayaasha hore ayaan la qabnaa waad aragtaan wadadaas waxa lagu shaqeynayaa fi sabiilillah iyo tabarrucaad waa iska wax u qabso iyo hadii ka dileeyahay muslimnimo waxaan rabnaa in laga caawiyo wadooyinkaas wadadaas aad aragtaan oo isku xidha gobolada iyo dalalka kala duwan ilaa Cergaabo ilaa meesha la yiraaho ilaa koonfur ilaa xamar isku xidha waad aragtaan way naga xuntaay waad aragtaa meesha buurta iyo qaabka siday tahay iyo rafaadka aan ku jirno waa kala jeexayno ugu dambeyntiina waxa intaasi dheer wacyigelin culuumadiin deegaanka ka soo jeeda Sheekh Ali Xuseen Sugile oo sheegay ajarka laga helayo qofkii wada dhisida ama wax ku darsada oo qaylibax ka soo qaata inuu ajar aad u weyn uu ku helayo bulshada ka soo jeeda deegaanka ayaa inta badan baryahani ahaa kuwa iyagu iskood wax u qabsada horumarka bulshada sida iskuulaadka iyo ceelal iyo dhisida
masjidyo taas oo ay qayb libaax ka qaadato ururka wadaniga maxalliga ee tasto. bismillaahi rahmaani rahiim. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحرب كليب كان إنان كديو كليب مهد علينا رجي أخيارتي سوتشاجي شليتو إني وحكا قبتان وددي قضى على السوق جليسي ورونتي دبات بدن حبش بدن أي كتاجنيت وقاديت كم دجان كوسو السعودي دبو كوها إنه سوقله رجع سوح القامس إسكا وحقب ساعة إني رونتي دتكو ذا وحقوق بتان xoogooda iyo dhididkooda iyo waqtigooda iyo runtii ay geliyaan hawshaas waxaan leeyahay waxaan kugu bishaaraynayaa waa hawl weyn ilaahay idinka aqbalo waa dadaal weyn runtii ballanqaad weynna qofka ilaahay agtiisa uu ka helayo qofka hawshaas oo kale qabta runtii waa hawlaha la doonayo inay tasto isgarab taagto waxaan oran lahaa akhyaartii ugu horeeyay Sheekh Cabdullaahi Faarax inay hawsha isu xilqaamaan waxaan leeyahay jaziina janna Allah ka dhigo waxaadna ogaataan rasuulka calayhi afdalu salaati wassalaam nin buu tilmaamay oo ka sheekeeyey ninka rasuulku wuxuu yidhi ninka jannada yuu isku rogrogaya macnaha waa nin jannada ku jiro jannadii waxa weeye ku gadgadoomaya ninkaas rasuulku wuxuu ku sheegay inuu arinta uu ku mutay wuxuu yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam fi shajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhi an-nas ninka wuxuu ku mutay abaalmarintaas ilaahay janno inuu ku abaalmariyo inuu siiyo wuxuu ku mutay geed waa hal geed waaye oo wadada dhexdeeda ka soo baxay oo dadkana dhibayay iyo geedkiibu ka jaray intaasuu marka abaalmarinta weyninka badan xadiidkaas waa xadiid saxiix muslim ku yaala yuu ku mutay marka in qofku uu janno uu ku helo hawshaad haysaan hamoodina inay hawl yar tahay ilaahay niyadiina ha wanaajiyo waa camal aad uu ilaahay loogu dhowaado waaye laba wuxuu rasuulku mar kale tilmaamay in ay arintaan oo kaleeto khadamaadkan caamka ah oo dadka loo qabto in ay ka mid tahay waxyaabaha dambi dhaafka ilaahay uu ku bixiyo subxaanahu wa tacaala lidaalika rasuulku leeyahay sala allahu calayhi wa aalihi wasalam xilli waxaa jirtay uu rasuulku yidhi nin yaa waddada maraayay markaasuu wuxuu arkay laan qodax leh oo waddadii ku soo baxsan ninkii rasuulku wuxuu yidhi fa akharahu laantiibuu waddadii ka leexiyey فشكر الله له ننكب إلهي باكو كما هذيي وناقي سميي فغفر له مرقاسو إلهي نقودن بدافعي ننك فيري ذنوبتا إن لدافعي وحسهلا ما محلوك مدن كرا ننكاس رسولكو إنو الشيغي وحكومتي حلانا وقضح لهايد وضد دحتيلي يو ننكاسي كي قادي كلي انتو سمي محادو ملاني سامركا ودو وحوين قدد له وبهولا له oo bihi ay jareen oo wax weeyaan aad u dhibaataysan baabuurtii dadkiiba ay ku dhibaatoonayaan qofkii u guntada si wax weyn iska wax u qabsaa inuu wax weeyaan wax uga qabto runtii waa amal jariila waa qodobka saddexaad rasuulku wuxuu tilmaamay arintaas oo kaleeto walaalayaal inay ka mid tahay waxyaabaha شعب الإيمان بالله إيمانك يعني قيبه سيكمت قفك مسلم كا يعني وحيابها إيمان كيسا وكو حنبارايو وناقا إيمانك ووقع حدوغاتين ودو الله سعوتان إيمانك درجات بولي يعني رسولك حوتي مامي صلى الله عليه وسلم دوري تضبات قيبوض واي مالك رسولك حوري وبضع وستون شعبة دوري لحظا قيبوض وي وحاقو فضلي بدن كلمة توعيدك لا إله إلا الله وحاقو هوسيسا إماطة الأذى عن الطريق وضد وحوى نبكا لقليح يعدد في سبب مصر بوسان كيا لا رنتي إساقنا وأرن يعني إيماني قفك إيمانك سكتر جميسا مركز الرسول كوكوت رنتاس قفك يعني قعانك جيستيني كمل يعني لمتا إساقو صدق في عن لبحي أو كليتو ولي الرسول صلى الله عليه وسلم وتميت الأذى عن الطريق صدقة إن تشتك كل حيسو وحدتك لباية وصدقة واي حديث البخاري مسلم بواي واي سوى ورينايا مركا مسهلنا ولا للرنتاسي رنتينا وأرين مدن إلا جمع هاد عليو
wuxuu leeyahay nabigu sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxaa la itusay la ii soo bandhigay uridtu calaya acmaalu ummatii ummadayda camalkoodii waxay samaynayeen yaa la ii soo bandhigay buu rasuulkuna leeyahay sal ly salam xasanuhaa wa sayi'uhaa koodii wanaagsanaa camalkii wanaagsanaa iyo kii xumaa ee liita intaba waa lay tusay buu rasuulku yidhi markaasuu rasuulku wuxuu yidhi fawajadtu fii maxaasini acmaaliha waxaan ogaaday oon arkay in acmaasha kuwooda ugu wanaagsan ay ka mid tahay aladaa yumaatu cani ariiqi waxyaabaha dhibka oo dadka dhibaya oo laga leexiyo ariiqa waxaan arkay in ogaada inay ka mid tahay waxyaabaha maxaasinta acmaasha ugu wanaagsan inay ka mid tahay marka arrintaasi ma sahlana runtii waa fadli iyo darajo walaalahaas ay mudan yihiin in lagu ammaanana ay mudan yihiin nin baa nebiga u yimi markaasuu wuxuu yidhi rasuulkii allow waxaad ii bartaa shay antaficu bihi waxaan yani munaafacadsado oo wanaag aan ka helo rasuulka allow ii sheeg buu yidhi saxaabigaasi rasuulku wuxuu yidhi iczil iladaa can ariiqi almuslimiin jidka waxaad ka leexisaa waxyaabaha dhibka ee dadka dhibaya ariiqa muslimiintu ay marayaan haddaad ka leexiso waxay ka mid tahay wax weyn oo adna aakhiro wax kuu taraya arrintaasi marka walaalayaal runtii waa arrin ay mudan tahay in laga mahad celiyo waa in waxa weeyaan markay ugu liidato la yidhaahda walaalahaas hawsha isu xilqaamay dadaalkaas sameeyey in la yidhaahdo weeye ilaahay miisaanka xasanaadka alla idiin saaro